بسم الله الرحمن الرحيم صاحبيال kusoo dhawaada barnaamij yar oo aan uga hadli rabo heestan muranka badan dhalisay ee ay soo wada qaadeen fanaaniinta kala ah Lil Baliil iyo CK run ahaantii waxyaabaha aan daawaday waxaa ka mid ah waxyaabo aan aad ula yaabay oo aan aad ula fajacay heesta markay soo baxday kadib waxaa jirtay falcelino ka dhalatay heestaas waxaa ka soo hadlay dumar heesta magacyadooda ka dhex arkay heesta gabdhahaas siyaabo kala duwan ayay uga hadleen waxaa ka mid ahaa qaar kor uga baxay iyo qaar aad uga xumaaday oo ballan ku qaaday inay aarsan doonaan arrinta meeshaas kuma dhammaanin markay meesha marayso ayaa waxaa soo dhacay laba hees oo ay soo kala qaadeen hees waxaa soo wada qaaday Ilka Casi iyo Jawiye heesna waxaa qaaday Kiin Arash iyo wiil kale oo la metelay magaciisa hadeer ma xasuusto labadaas heesood runtii waxa ay sii kiciyeen xamaasadii arrintii markii horeba cirkaas maraysay heesahaas midda Kiin Arash iyo wiilka kale ay soo qaadeen waxaa ku jirtay erayo ay ku weerarayaan ninka la yiraahdo Cilmi sidoo kale heesta ay Ilka Casi iyo Jawiye ay soo qaadeen waxaa ku jiray erayo ay ka mid ahaayeen in gabadh ay difaacayeen ay ku sheegeen qeybaheeda hoose garoonka Stadio Konis ereygaas dhowr nooc ayaa loo fasirtay dadka qaar ayaa u fasirtay inaadan gool meeshaas ku dhalin waxbay ka dhigan tahay iyo qaar u fasirtay waa garan karnaa anugu ma raba inaan afkayga soo mariyo intaan oo hadal oo aan idiin sheegayo waxaan usoo qaatay waxay tahay waxaan arkay video uu soo duubay ninka la yiraahdo Cilmi oo aad iyo aad u caraysan oo ka caraysan heestii lagu soo karbaashay videogaas mar waa ku qoslaa mar waa la yaabaa marka kulay waa nin isdifaacayo oo isku arka dhibane oo macnaha isagana wuxuu sameynayaa difaacu nafsi qaabku isku difaacaya rabaa inaan idin la wadaago oo aan idin tuso video yar oo soo duubay in yaraan ka soo qaadanaya anoo ilaalinaya copyright-ka la yaab ma lahan qofka bini'aadmiga ah waxaa u bannaan inuu isdifaaco haddii uu isku arko in lagu soo xadgudbay laakiin falcelinta ka dhalatay heestaas waxaan leeyahay waxay noqonaysaa midda ugu weyn ee 2023gan haddeer bilowga ah wax ka magaciisi sanaan doona inay soo baxayaan u malayn maayo haddaan sanadkiina dhaafay ee 2022 wax noocaana ma soo marin baraha bulshada waxaan u malaynayaa waxyaabihii ugu yaabka badnaa oo xoogaa reaction laga sameeyey waxaa ka mid ah Cilmi mar walba waa ku jiraa heestii Cilmi uu Sharma Boy uu Cilmi ku karbaashay heestaas reaction badan ayaa ka dhalatay ninka la yiraahdo Cilmi isagana jawaabo ayuu ka baxshay waxyaabaha kale ee sanadkaas dhacay ee aan isleeyahay waxay ahaayeen waxyaabihii ugu saameynta badnaa waxay ahaayeen gabadhii qosolka diiday qurux ku dhigle gabadhii tiri qosolka waa mamnuuc arrimaha ugu yaabka badan bay ka mid ahayd waa inaan soo xasuustaa waxyaabaha kale oo dhacay waxaa ka mid ahaa ninka la yiraahdo aad uma wada xasuusto by the way waxaan rabaa inaan idinla wadaago videogaas yar hadduu ilaa yiraahdo kanaalka haddaad ku cusub tahay like subscribe iyo follow waa mahadsantihiin ila daawada videoga asalaamu calaykum agaala siikay waa neerak weeye waa nin boqolow ah naagtii sharaf laheedna waa laga dhaqaaqaa naagta hadday sharaf lahayni naagta hadday bohol tahay naagta hadday dhilo tahay naagta hadday silkeeda ka biicsata cid ag joogaysa ma laha anigaan kuu sheegayaa naag hadday dhilo tahay oo sharmudo tahay oo silkeeda gaayoon yahay cid ag fadhiisanaysa ma jirto waa laga tagayaa daas baa loogu taga manaan ma wax kale intaa wadaa adigaa caddaysay Ilka Casi inay silkeeda taas baadan siika ugu tagtay daliisha iyo runta adiga baabalaha bulshada keentay hadday maxaa qaldan waa maxaa uma daanet waa hees baa la soo qaadaa dad baa la soo caanaya
adigana king gaashow waxaan kaaga balan qaaday xamaysaan ku joogi lahayd